dowladda Soomaaliya oo sheegtay in maamul goboleedyada dalka ay saxiixeen sharciga batroolka oo ay meel mariyeen baarlamaanka dalka. ciidamada Galmudug oo maanta xiray wadooyinka gala degmada Gurceel iyo howlgallo halkaasi ka socda. madaxweynaha Jubbaland oo maalintii labaad abaabul dagaal ka wada gobolka Jubbada Hoose. dowladda Mareykanka oo faahfaahisay duqeyn ay ka fulisay gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday mid ka mid ah ku-xigeenadii ugu awoodda badnaa gobolka Banaadir. ku dhawaad 300 oo tahriibayaal laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Liibiya. dowladda Uganda oo shuruuc adag ka soo saartay caruurta darbijiifka ah iyo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ingiriiska Theresa May oo shaacisay iscasiladeeda kadib cadaadis xooggan oo ay la kulantay. jimcaha wanaagsan Ramadaanul Kariim waa 24ka bisha Afraad ee May 2019 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warkii aad maqasheen oo faahfaahsan. dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in maamul goboleedyada dalka ay saxiixeen sharciga batroolka oo ay meel mariyeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. warsoosaaraheena Maxamed Abuukar Dabaashe ayaa dhameystiray. tan iyo markii baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen sharciga batroolka dalka ayaa waxa ay soo tarayay qeyla dhaanta xooggan ee ka soo yeeraysa madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo ka soo horjeestay inta badan sharcigan. xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ahmiyad gaar ah siinaysaa meelmarinta sharcigan kaas oo ugu dambeyn toddobaadkan baarlamaanka Soomaaliya ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen sharcigan la xiriira batroolka kaas oo dowladda Soomaaliya u sahlaya in la soo saaro kheyraadka ku ceegaagan biyaha Soomaaliya. wasiirka batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu sheegay in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku heshiiyeen wadaaga kheyraadka shirki ka dhacay magaalada Baydhabo. waxa uu sheegay in shirkaas ay u wada dhameeyeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada ayna lagu heshiiyay sidii loo wadaagi lahaa kheyraadka. wuxuuna sheegay in aysan jirin sabab hadda madaxda maamul goboleedyada ay u diidaan meelmarinta sharcigan. heshiiska siyaasadeed ee Baydhabo lagu gaaray dhammaan madaxweynayaashii maamulayay dowlad goboleedyada way joogeen markhaati ka ahayn wayna saxiixeen. waxaa jira guddiyo kale oo loo yaqaano guddiga wadahadalka wadaxaajoodka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo muddo dheer anaga la tanay wasaarad ahaan iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo xafiisyadooda u socday. taas waxay keentay in heshiis rasmi ah la gaaro oo lagu heshiiyey habkii loo wadaagi lahaa, habkii loo maamuli lahaa iyo yaa iska leh kheyraadka marka hore wax iska lahaa waxaa maamul lahaa dowlad dhexe. hadda laakiin dowladda federaal iyo dowladda xubnaha ka ah meel kasta oo shaqo laga qabanayo dowladii ku aadan aagaas iyo dowladda federaalka ayaa ka wada shaqeynaya hawshaas. heshiiskaasi oo u noqday heshiis sax ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay inta aan la ansixin sharciga laftiisa. waxaa ka horeeyay in la ansixiyay heshiiskii la soo gaaray si uu u noqdo heshiis sharci ah oo ummadda Soomaali binding oo aysan qof cidda ka bixi karta aysan jirin. dowlad goboleedyada dhinaca kale wasiirka batroolka ee macdanta xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay hayso saxiixiyada madaxda maamul goboleedyada ay saxiixeen heshiiskan ay la xiriiraan sharciga batroolka dalka. wuxuuna sheegay in haddii madaxdu ay diidaan la soo bandhigi doono saxiixiyadooda. ilama aha in wax dhibaato ay ka sheeganayaan sharcigaas sababtoo ah waa dadkii saxiixay. waxaa laga yaabaa in siyaabo kale qofka uu wax uga raadsanayo dowladda federaalka laakiin sharciga batroolka iyo wadaagiisa iyo heshiiska la gaaray dhammaan way ku caddahay heshiiska batroolka. sharciga batroolkana waa ku lifaaqnay heshiiskii la wada gaaray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. sharcigan waa sharciga aan ugu talagalnay inuu ilaaliyo ilaan markii shaqo batrool la bilaabayo bii'adda dhibaatada la gaarsiin karaa. sharcigii ilaalinaya bii'adda laftiisa iyadoo dowladda federaalka ay samayn doonto sharci u khaasa bii'adda laakiin waxaan ku caddaynay ciddii inta heshiis nala gasha dhibaato u geysata bii'addeena ayada inay mas-uul ka tahay dhibaatada geysata waana sharcigii lagula xisaabtami lahaa. sharcigan waa sharcigii kala hagi lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah siday u wadaagi lahaayeen. marka waa sharci dhinacyo badan wax ka fiirinaya. bii'adduu ilaalinayaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ayuu xeerinayaa siday wax wadaagi lahaayeen isla markaasna
madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug oo dhawaan shir ku yeeshay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan waqooyiga Gaalkacyo ayaa waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay kaga soo horjeedaan meelmarinta sharciga batroolka ee baarlamaanka ay meel mariyeen ayagoo sheegay in labada maamulba ay kasoo horjeedaan sida dowladda Soomaaliya ama xukuumaduba ay sharcigan duubduub ahaan ay baarlamaanka u meel marisay wasiirka macdanta iyo batroolka maanta ka qaybgalaya barnaamijka baxaya TV-ga dowladda waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay heshiis xilli hore ay ku wada gaareen shir ka dhacay magaalada Baydhabo aysan jirin sabab hadda maamul goboleedyada ay u diidaan sharcigan baarlamaanka u meel mariyay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa degmada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud halkaas oo shalay lagu qabtay nin doonayay inuu isku qarxiyo goob ay munaasabad ka socotay ciidamada ammaanka Galmudug oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa wadooyinka gala degmada Gurceel iyaga oo howlgallo baaritaano ah ka wada halkaasi sida ay soo sheegayaan wariyaal ku sugan degmadaasi wararka kale ee la helayo waxa ay sheegayaan in ciidamada Galmudug ay ilaa iyo 5 ruux oo kale ay u qabteen qaraxii shalay ay ciidamada ka hortageen dadkaasi lagu tuhmayo inay abaabuleen qaraxa sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Galmudug degmada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud ayaa waxa ay ka duwan tahay sidii hore waxaana la arkayaa ciidamo oo meel walba taagan isla markaana howlgallo baaritaanaha sameynaya waxaana meelaha qaar la sheegay in ay u diidayaan in ay gaadiidku ay isticmaalaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa maalintii labaad waxa uu ku sugan yahay jiidda hore ee dagaalka ee gobolka Jubbada Hoose isagoona halkaasi ka wada abaabul dagaal Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maalinkii labaad booqasho kula jooga ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka ee deegaanka Baarsanguuni ayaa ammaanay dadaalka ay ugu jiraan sidii xasillooni nabad uga hirgelin lahaayeen guud ahaan deegaanada Jubbaland waxa uu sheegay in qaar badan oo ka mid ah ciidamada ay hayaan shaqo adag oo ay ku badbaadinayaan dadka Soomaaliyeed kagana difaacayaan al-shabaab sida uu hadalku dhigay idoo waliba duruufo adag yihiin wuxuuna intaas ku daray in dadaalkooda uu lafdhabar u yahay soo celinta nabadgelyada guud ahaan dalka ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka ee ku sugan deegaanka Baarsanguuni iyo Boolaguduud ayuu madaxweynaha qodbad u jeediyay isagoo xusay inay yihiin geesiyo cadow ka gaban sida uu hadalku dhigay madaxweynaha ayaa sheegay in iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan waxa loogu argagixisadu ee daadinayaan dhiiga shacabka Soomaaliyeed mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ayaa xalay la bariyay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xooga dalka ee ku sugan afurimaha hore ee waqooyiga gobolka Jubbada Hoose isagoo sheegay in howlgallada hadda la qorsheeyay ay bilaabanayaan waqti dhow dhowr bil ka hor ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu Kismaayo kaga dhawaaqay in uu bilaaban doono dagaal markaasi lagu qaadayo saldhigyada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada Jubbooyinka isagoo xilligaas soo bandhigay gaadiid markaasi dagaal isla markaana ciidamada Jubbaland ee Kismaayo xaafadaha kala duwan ka sameeyeen dhoolatus military hase ahaatee hadalkaas uu noqday mid meel la isaga tuuray dowladda Mareykanka ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay duqeyn diyaaradaheeda dagaalka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose Ubax Maxamed ayaa dhameystiraysa warkan war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 22kii bishan May ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Baladul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana dadka ku dhibaateyn jiray dhulka amiiga ah ee deegaanka Baladul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose sida uu sheegay agaasimaha sirtoonka u qaabilsan Afrika ee qaaradda Afrika sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaan in duqeyntaasi ay wax ku noqdeen iyo in kale dad rayd ah isla markaana qiimeyn ay ku sameynayaan khasaaraha guud ee ka dhashay
waxa uuna sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab. Mareykanka ayaa sanadkan 2019 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah uu ka fulinayo Soomaaliya, waana duqeyntii 38aad ee sanadkan 2019 kaliya uu Mareykanka ka fulinayo gudaha Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa xeer uu soo saaray ku magacaabay Ibraahim Cumar Mahad Alle Ibraahim Dheere inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir. Xeerkan ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur oo ahaa ku-xigeenkii ugu awoodda badnaa gobolka Banaadir. madaxweynaha ayaa markii uu tixgeliyay waayo aragnimada uu mudanuhu xilkan loo magacaabay u leeyahay howlaha loo igmaday waxa uu soo saaray xeerkan lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha maamulka maaliyadda gobolka Banaadir ayaa ku dhaqan galay saxiixa madaxweynaha ee khamiistii taariikhduna ku beegneed 23 bishii May ee 2019 waana maalintii shalay ahayd. wararka ayaa sheegaya in xilka qaadista iyo magacaabidda ay qayb ka tahay isbedelo ku socda gobolka Banaadir oo muddooyinkii ugu dambeeyay la hadalhayay. madaxweyne Farmaajo ayaa muddadii 2 sano ahayd uu xilku hayay 2 jeer magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho iyo dhammaan ku-xigeenadiisa, waxaana dad badan ay isweydiinayaan saldhigasho la'aanta gobolka Banaadir oo ay qayb ka noqotay xilalka wasiirada iyo la taliyayaasha ciidan ee sida isdaba joog ah isbedelada ugu dhacaya. halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Risaale ee Muqdisho. maanta oo Jimcaha si lama filaana waxa ay uga dhawaaqday in ay xilkeedii iska casishay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda waddankaasi Ingiriiska Theresa May kadib markii ay kulamo la qaateen ama ay la qaadatay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigeeda. Theresa May, ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska, ayaa maanta iscasishay muddooyinkii ugu dambeeyayna waxa ay dareemaysay cadaadis ay kala kulmayso qorshaha Britain ay uga baxayso midowga Yurub oo lagu dhaliilay xukuumadeeda. hadal kooban oo ay maanta siisay warbaahinta ayaa waxa ay ku sheegtay in dadaal fara badan ay sameysay si qorshaha dowladda Ingiriiska ee ka bixitaanka midowga Yurub uu u hergalo, ha yeeshee ay ku guuldareysateen. hadda waa ay ii caddahay in waxa ugu wanaagsan ee dalka ay tahay ra'iisul wasaaraha cusub uu hogaamin doono dadaaladan. sidaas darteed waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaan iska casili doono hogaaminta xisbiga Conservative-ka laga bilaabo 7 Juun, ay tiri May oo ilinta iska celin kari weyday. Theresa May, ra'iisul wasaarihii Ingiriiska, ayaa xilkaasi waxa ay qabatay sanadkii 2016 kadib markii uu iscasilay David Cameron, ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Ingiriiska, waxaana uu ahaa mid isaga ka biyadiidan Britain inay ka baxdo midowga Yurub. sidaas ayuuna isku casilay. waana haweeneydii labaad ee Ingiriis ah waa haweeneydii labaad ee Ingiriiska ra'iisul wasaare ka noqota Mrs. Theresa May.